war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada damiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ku sheegeen in dabka kacay guriga uu degan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka iyo wicid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe oo ku yaala xaafadda Masalaha ee magaalada Hargeysa ay baqtiyeen. War-saxaafadeedku soo gaaray Bulsha TV ayaa waxa uu dhignaa sidan: ciidanka damiska Soomaaliland ayaa waxay maanta damiyeen dab qabsadeen laba qol oo ka mid ah hoyga uu degan yahay gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe oo ku yaala xaafadda Masalaha ee magaalada Hargeysa. dabkan ayaa waxa uu ka bilaabmay laba qol oo ku yaala banaanka guriga kuwaas oo kala ah store iyo qolka ilaalada guriga, waxaana ciidanka damiska oo goobtaasi markiiba gaaray ay dabkii ku xakameeyeen halkii uu ka bilaabmay. ciidanka ayaa badbaadiyay guriga intiisa kale oo ah laba dabaq, hantidii taalay iyo 3 gaari. sababta dabkan dhalisay ayaa goobjoogayaashu waxay ciidanka u sheegeen in ilmo yar ku gubay leetar. howlgalka waxa ka qayb qaadanaya ciidanka damiska ee degmada Maxamuud Haybe iyo ciidanka taliska guud. sidoo kale waxa gurmadkaasi lagu galay 5 gaari oo damisa. taliyaha ciidanka damiska Soomaaliland Sareeye Guud Axmed Xasan Zawaaxili ayaa howlgalkaasi goobjoog ka ahaa, waxaana iyaguna ka qayb qaatay xubno kale oo ka tirsan saraakiisha iyo ciidanka labada xarumood. gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Cali Xuseen oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay ciidamada damiska, isagoo sheegay in markii ay dalbadeen gurmadka ciidanku soo gaareen isla markaasina damiyeen goobtii uu dabku haystay, sidoo kalena dabka ay ka badbaadiyeen qaybaha kale ee dhismaha. ugu dambeyn ciidanka damiska ayaa howlgalkaasi ku soo dhameeyay guul, waxaana howlgalkaas iyaguna dhankooda ka qayb qaatay ciidamada booliska ee Hargeysa. howlgalkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee maanta ciidamada damiska Soomaaliland u gurmadaan, kuwaas oo kala ah 2 howlgal oo magaalada Hargeysa iyo howlgal kale oo ka dhacay magaalada Ceeriga ee xarunta gobolka Sanaaga. sidaas ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada damiska Soomaaliland oo lagaga hadlayay dabka ay ka damiyeen guriga gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, wararka Bulsho. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? islaam fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 15 eber. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.